bismillahi raxmaan raxiim anigoo magacay uu yahay ayaan la galbeedi maanta waxaan ku sugannahay xarunta guud ee youtuberka Ago Football Show gobolka Minnesota magaalada Minneapolis baan joognaa waxaanu ka hadlaynaa maanta falanqeyn ku wadnaa tartanka ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo ka socda gobolka Maroodi Jeex caasimadda ayaan wixii nooga baxsan aan ku falanqeyn doonaa insha Allah taala waxay ugu heli doonaa barnaamijkan insha Allah hadii Ilaahay raahdo asxaab aad u qiimo badan oo halkan aan ku nahay bahwadaag sportska magaalada Minneapolis iyaga kusoo dhaweynaya kusoo dhawow waana salaamaya waana mahad celinayaa lejanka laacibka weyn saaxiibkay ayaan galbeedi waxaan kaloo mahadnaqayaa youtuberka weyn Idris iyo showgiisa Aga Football Showga oo maanta halkan ugu martigeliyay dabcan haddaan anigu aragtideeda guud ka dhiibto ciyaaraha gobolada ee ka socda gobolka Maroodi Jeex ama magaalada Hargeysa caasimadda si habsami leh ayay u socdeen markii hore walow ay aniga markii ugu horeysay ay tahay inaan maaragtay u dhagnuglaado ama aan qiimeeyo tabta ciyaaruhu ay u socdaan sababtoo ah anigu 30 sano ugu dambeeyay waan ka maqnaa wadanka iska qurbaabo baan ahaa marka ayaan la iga dambeeyay oo si wanaagsan maaragtay ula socday iyo saaxiibkay Mustafa isaguna meesha ila jooga hasaata haddaan aragtideeda guur ee ku saabsan qaabka ciyaaruhu u dhacaan waa aad arrin wanaagsan inay horta la qabto koobka hasa ahaatee laba wax baa muhiim ah number 1 inay dadku diyaar u noqdaan in ay kubadda ciyaaraan isdhexgalkeedii iyo wanaageediina ay muujiyaan iyo in koobku uu nabad ku soo dhamaado kuna bilowdo ciyaartii ugu dambeysay maanta waxaan maqlayaa qalalaaso ayaa ka dhex dhacay hase ahaatee waxaan anigu ku bogaadin lahaa in xasloonida la dedejiyo oo wanaag iyo nabad dee wax walba lagu dhameeyo marka kubadda la ciyaarayo dabcan qaladaad uu iska dhici karaa xifaaltan badan bay leedahay kubaddu especially marka lagu jiro gudaheeda xamaasad badan baa dhici karta laakiin dadku waa dad walaalo ah marka waxaa wanaagsan in aniga arrintayda haddaan fikradeyda ka dhiibto nabadda lagu dadaalo saasaanan dee uga baxaya waxaan kaloo ku celinayaa microfonka saaxiibkay ayaan leh aad iyo aad baad umahadsan tahay Dr. Saleeman oo ah nimanka ciyaartooyga uguna firfircoon statekan aan ku noolahay ee Minneapolis nimankuna waxaan kusoo dhaweynayaa ciyaartooy hore Mustafa bismillah marka hore ilaahay baa mahad iskale suugaan keenay inuu caafimaad qabno mar labaad waxaan u mahad celinayaa oo leeyahay mahadsanid walaalkay Idris oo ah youtuberka aan kasoo muuqanayno hadda Ago Football Show runtii barnaamijkan maanta isku keenay aniga iyo asxaabtayda qaaliga ah waa aragtida ah aan ka aaminsannahay muxuu ahaa koobka gobolada Somaliland run ahaantii koobka gobolada Somaliland waa koob in muddo ah soo socday oo maad aragtay maalinba marxalad aanan la soo mari jirin alxamdulillah koobkani wuxuu yahay koobkii ugu qiimaha badnaa marka la eego koobkii hore sababtoo ah waa koob daafaha caalamka oo dhan laga daawanayo waa koob runtii dhalinyaradu ay isku soo jiidaya oo dhalinyaradu aad isku baratay waxaan rajeynayaa koobkan inta ka hadhan insha Allah inuu ilaahay si nabad samiya inaan ku dhamayn doono intaas ka baxaya okay su'aalahan waxa dambe kaga hagaajin doonaa laakiin idinku mar hadda idin sheegay su'aasha koowaad aan doonayay inaan weydiiyo waxa weeyaan horta qaabka ciyaartooyga loo soo xulay dhammaan gobolada Somaliland oo dhan sidoo u aragtaan anigoo ku bilaabaya ayaan leh bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad u mahadsantahay Idris runtii su'aasha weydiisay haddaan jawaabteeda isku try gareeyo boqolkiiba boqol waxaan qabaa horta ciyaartooy dhisan akhlaaqiyan iyo kubad ahaan iyo farsamo ahaanba dhisan ay doorkan laga soo xulay ciyaaraha gobolada Somaliland
ha ugu horeeyaan nimanka dhalinyarada ah waktigoodii ku jira aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan arko niman dhalinyaro ah oo lasoo xulay waata kale wax dhaliila halkaa uma hayo ciyaartoyga lasoo xulay waxaan u hayaa uun ciyaartoy waktigoodii maraya jaanisyo badan helay macallimiin badan oo dhalinyaraa helay marka 100% si fiican baa loo soo xulay waana waktigii ugu habboonaa ee la xuli lahaa heer gobol ayaa la xulay say la tahay aniga ها طبعا haddaan su-aasha aniga lafteeda isku dayo inaan ka jawaabo qaabka loo soo xulo ciyaaraha ama ciyaartooyada ama la isku soo abaabulay waxaad moodaa in ay si habsamile ku jirto sababtoo ah waxaad ka dareemaysaa ciyaartooyada garoonka soo gelaya ciyaarta ay soo bandhigayaan sababtoo ah ciyaartooyga kubadda yaqaana ama position kasta marka loo eego marka la isku soo organize gareeyo waad ka dareemaysaa kubadda ay ciyaarayaan ama soo bandhigayaan waxaa kale oo halkaad ka dareemaysaa markii ay laba kooxood wada ciyaarayaan koox waa dardar cusub bay leeyihiin goolo fiican baa la iska dhalinayaa kubadda dhisitaankeeda iyo qaabka loo maamulayo aad bay khibrad badan tahay marka aniga laftaydu tii khibrad ahaan ahayd markaan qiimeeyey qaabka kooxaha kasoo qayb galay wallahi kulligood way wada fiicnaayeen nin walba meel bay natiijadu gaadhsiinaysay hase ahaatee guud ahaan marka laga eego ciyaartooygaasi waxay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan taasna waxaa keeni karta dadkii soo xulayay inay ka baaraan degeen oo ciyaartooy tababaran oo dhisan oo garoon ka bixi kara inay keeneen anigu waxaan ku raacsanahay horta walaalaha iga horeeyey yiri si wanaagsan baa loo soo xulay dhalinyaradan hadda kasoo qayb galaysay koobkan waa run dhalinyaradan juhdi badan baa lasoo geliyey markii lasoo xulayey waxaa lasoo geliyey tacab waxaa loo soo eegay oo maad aragtay lagu qiimeynayay nin walba heerka uu ka marayo dhinaca kubadiisu ay marayso marka waxaan u arkaa uun si aqooni ku jirto in loo soo xulay dhalinyaradan hadda ciyaaraysa koobka waayo waxaad ka garanaysaa qaabka ay kubaddooda u ciyaarayaan qaabka ay iskula haystaan awal koobabkii hore marka loo barbar dhigo dee sidan looma ciyaari jirin laakiin hadda waxaad moodaa waxoogaa inay ku ciyaarayaan sidii dad maaragtay professional oo kale ah marka aad bay dhankan ugu hambalyeynaya ciddii soo xushay ciyaartooyada gobolada oo dhan mahadsantiin su-aasheeda labadeedii weydiinaya waxa weeyaan cabasho aad mooday inay gobolada qaar ay ka jirtay qaabkay u kala socdeen imika haddaan isha ku dhufanno oo kale gobolkii burco oo kale waxaad mooday siduwaha tababare ku-xigeenka iyo ciyaartooygu inay dhinac u kala socdeen burco waxay ahayd kooxii ugu fiicnaaye loo saadaalinaya koobka inay qaadaan haddana waxaad mooday in ciyaartoodu dhinac ka qaldanaydoo sida maadaama aananu meesha joogin warar badan aan ku arkay aan ka arkayna bahda shaashadda waxyaaba ay soo gudbiso coachka uu hadlayey ciyaartooy kamid a ciyaartooygii uu hadlayey oo midba nooc uga hadlayey coachkoo ka hadlayay ciyaartooygu inaanay qalad samayninoo ciyaartoodu ay fiicnayd laakiin guuldarro uunay kasoo gaadhay meesha sanadka dambena ay dadaali doonaan laakiin ciyaartooyda qaar ay sheegayeen inay kooxdu kala qaybsanayd ciyaartooy kamida kooxda ay iyagu qasab ku ciyaarayeen iyagoo coachku aanu lineupka ku darin amba ciyaarta aanu ku darin ciyaarayeen isuduwaha amba ninkii meesha watay ciyaartooy qaar ay ka cabanayeen oo ay lahaayeen kharashkii aan kusoo baxnay waana laga cunay amba waa lanaga dhacay nacam su-aasheedu ayaa waxay ku salaysantay marka koowaad tababaruhu miyuu u baahan yahay kooxda in isuduwe amba maayarka gobolkay ka soo jeedaan uu daba socdo uu la maamulo kooxda because waxaad moodaa inaanu tababarihii awood buuxdo u lahayn kooxda maamulkeedii ciyaartooygu sidooda miyaanay ahayn ciyaartooy inay daba fadhiistaan tababarahooga ah oo ciyaartooyga lineupka intuu ka dhigo uu ka dhigo intii fadhidana la fadhiisiiyo tan wixii bedel uu coachku samayn karo sameeyo si hadhow tole ciyaarta iyo dee tiimka iyo kala dambeyn coachkii iyo kabtankii iyo ay noqoto wax fiicanoo meeshii wada galaa oonay usoo bixin dhaliil noocan oo kalaayo coachkii iyo ciyaartooygii aanay isku kalsooneen markaa su-aasheedii koowaad saleebaan baan ku horreysiin doonaa su-aasha haddii la haydhaa fikraddaadu siday kula tahay bismillah horta ciidurus waa mahadsantahay saaxiib haddii aanan u fikraddeedu ka dhiibto su-aasha aad na weydiisay saddexdayada waxa weeyaan horta wax walba waxa leeyahay chain of command meaning qof walba shaqo gooniya ayuu leeyahay markay timaado waxyaalaha noocaas
ciyaartoy aslan ba anu deesan ciyaartoy ku ahaan jiray ama aan ku aqaano waxa weeyaan shaqadaadu waxay tahay in aad ciyaartoy ku ekaatid oo garoonka markii lagu geliyo iyo markii bannaanka aad fadhididba isku mid ahaatid guushana aad u eegtid uun in ay guulaysteen tiimkaagu ama haddii uu los meesha yimaado oo dee aad guuldarro kugu timaado uun aad dadka saaxiibada wax la qabtid maamulka waxaa iska leh inuu ciyaartooyada maamulo tababaraha waxaa kaloo tababarahana isagana waa lasii maamula marka anigu ma garan karo dabcan meesha maayarku uu kasoo galay ama dad kale oo kasoo galaan maamulidda kooxda la maamulayo waxaa maamul buuxda dee inuu u lahaado aniga shakhsiyan saan u aqaano ahayd ninka tababaraha ah tababarahana mar walba waa in uu maylkiisu adag yahay oo uu khibradda sida uu rabo inuu u ciyaaro iyo qaabka uu rabo inuu u maamusho ciyaartooyadiisa wax laysla og yahay oo ciyaartooyada ay ka warqabaan uu noqdo markaan anigu markaan isku geeyeen kala gooyey kooxdaas togdheer ka socotay maamul darro xun ayaa haysatay dee dadkuna isku wada aragti maaha qof walba siba wax u arkaa hase ahaatee ciyaartaada haddii maamulkaagu wax ka maaragtay si yihiin mar walba waxay saamayn ku yeelanaysaa kubaddaada ciyaarideeda iyo tiimkaaga maamulidiisa marka anuu xaggaas intaasan kaga baxaya dee waxa weeyaan ciyaartoy fiican bay wateen ciyaar fiican bay soo bandhigeen hase ahaatee waxaad moodaa in waxoogaa yar maamul jiracsani uu meeshii ka jiray taana hadday iska saxaan dee gobolka waxa lagu yaqaanay in ay kubad wanaagsan soo bandhigaan insha allah mustaqbalka dee waa looga fadhiya waana laga sugayaa bismillah su-aasha labaad haddaan isku dayo eed weydiisay caydaruusow arrinta khilaafka gobolka togdheer taasunbaa kolley ugu muhiimsan oo ta ugu culus ay tahay ciyaaraha gobolada taa horta waxaan u kala qaadayaa un qaybo badan oo igu horeyso isuduwaha iyo macalinka iyo maayarka iyo barasaabka gobolka ciyaartooyga iyo khilaafka gobolka togdheer shantaasun baan u kala qaadaya haddaan ugu horeysiyo say u kala sarreeyaan oo kale maayarka iyo barasaabka oo kale labadaas haddaan soo qaato waxa kaga aadan inay soo faragashadaan kooxda ciyaaraysa marka koowaad horta waxa wixii taageeraa ama ah gacan inay ka geystaan dhaqaale ahaan iyo wixii ka maqan inay la doonaan xaqba waxa loogu leeyahay barasaabka iyo maayarka ta labaad waxaan soo gelinayaa isduwaha ciyaaraha ee gobolka u jooga togdheer wasaaradda ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wuxuu u qaabilsan yahay oo wakiil uga yahay gobolka togdheer oo dhan wixii ciyaartoy iyo wixii sports oo dhana ee kubadda cagta oo qura ugama aha mas-uul waxay noqotay taa macalinka waxa awood buuxda u leh inuu magacaabo macalinka iyo macalin ku-xigeenkaba waa isduwaha gobolka maalintu isduwuhu u magacaabo macalinka inuu macalinkii gobolka macalinka u ahaa yahay waa inuu faraa uga qaadaa uga dhex baxaa oo awooddii ku wareejiyaa macalinkii si macalinkii uu access ugu yeesho inuu ciyaartoygu doono soo qaadan karo mar dhow wixii uga yimaadoo kale isaga ay madaxiisa ahaato ta kalaan ku daraya waxa weeye ciyaartoyga horta waxa muhiima in la fahmo sportsku ciyaartoygu inay fahmaan funaanada aad xidhanayso yaad ku matalaysaa funaanada gobolkaad xidhanayso reerkiinana kuma matashid caaqilkaagana kuma matashid sportska gobolka welibana kooxda kubadda cagta oo kale khilaafku inta badan dhex socdo kooxdaasaad ku madashaa kooxdaasoo uu kuu soo igmaday macalinkaagii macalinkana kalsoonida buuxun ku siiyey ee kuuli u ciyaar wixii ciyaartoy ahaa ee gobolka ka soo jeeday adaan kuu doortay inaad ka mid noqoto ciyaartoyadaan soo xushay 18ka abaalkiisu maaha inaad noqoto intaasaa ree hebel u ciyaarsiiyey aniga muxuu ciyaarsiin waayey taa lafteedu waxa dhibta ugu badan leh waa ciyaartoyga marka anuu khilaafkan waxaan odhan karaa un maamul daadejinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hadday xagga dowladda noqoto maayarka iyo barasaabka iyo hadday noqoto isduwaha hadday noqoto macalinka
in jaranjaradaas maamuldaadejintii aana ahayn sidii loogu talagalay si ay u shaqaynayaan dhibta ugu badanna ay ka imanayso xagga maamulka eena ciyaartooyga iyo macalinka toona ka imanaya marka kolley xalka waxaan u arkaa un in wakti la geliyo gobolka togdheer wallaahi waxay haystaan ciyaartooy aad u qiimo badan oo jiib iyo jaamba isla haysta oo da'yar u ata kale 20 sano kale sii ciyaari kara markaan waxaan odhan lahaa un maamul daadejinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo hadday noqoto qolooyinka wasaaradda arrimaha gudaha u qaabilsan maamul ahaan gobolka inay ciyaartooyga gacanta ku qaadaan ciddii maamulaysa saasuma noqon karaabaan xalkiisa ila tahay bismillah runtii waxaad weydiisay su-aal aad u qiimo badan khilaafka ka taagan burco ama gobolka togdheer ma aha mid uun yaga u gaara waa mid ay gobolada oo dhan ay kala siman yihiin ha ugu darnaato burcaye gobol bad khilaafka ka jira laakiinse waxaad moodaa khilaafka ka jira gobolka togdheer in maad aragtay aynay iyagu dhexdooda aanay xallin karin sababtoo ah maamul xumo awgeed marka maamulka labaynu kala saaraynaa waa mid hore oo soo maray oo xilal ka soo qabtay sportiska oo waxa jiray isku duwayin hore oo soo maray gobolka togdheer iyo mid hadda jooga oo maad aragtay aanay ka haya isku duwan sida aan sheekada ku maqlay ama aan maad aragtay aan xoga ku maqlay waxaa jirtay xurguf yaroo dhex martay isku duwayaashii hore ee gobolka togdheer iyo isku duwaa hadda taagan ay waxoogaa isla yar meel dhigi waayeen habmaamulidda ama dee tala isku biirsiga kabacdi ayna keentay khilaafkan in ciyaartooydii ay kala jabaan marka waxaan odhan karaa qaladka ugu weyni maaha cidda keenaysa ciyaartooyada ee waa maamul xumada ka jirta gobolka togdheer marka waxaan odhan karaa maamulka haddii baa isugu noqdo dib ha u soo soco qaladkooga ciyaartooyduna markaas ay u hoggaansami doonaan wixii halkaas ay maamulkooda usoo dejiyaan aad mahadsantiid su-aashayda saddexaad waxay ku saabsan tahay qaab ciyaareedka ay gobolladu u ciyaarayaan iyo dadka maamulka garoonka gudihiisa wasaaradda ciyaaruhu usoo igmadeen bikoos waxaad moodaa iminka ciyaar hadda ka hor dhacdayoo mid ciyaaraysay 1-0 iyadoo ah goolka iyagoo dabaaldegay goolka laga dhaliyay yahay xaysimo dhalisay daad mareedho gool iyo eberla xaysimo gool ka daba keentay iyagoo dabaaldegaya xiriirka uefa amba fifa oo kale haddii kooxdu intay gool dhaliso ay u dabaaldegto xagga gooshooda gebigooguba isla tagaan wuxuu dhigayaa kooxdan inay kubadda baasan karto bilaaban karto maadaama kooxdan ay joogto xal dhinaco gooshooda amba aad dabaaldegaan because in badan baynu aragnay ciyaaraha haddaad daawateen goalkeeper free kick soo dhaliya amba penalty soo dhaliya isagoo dabaaldegay xaggan kusoo maqan yihiin laga daba keeno gooshii marka ciyaartaas oo kale maadaan soo qaato iyagoo dabaaldeg ku maqan oo gooshoodii jooga ciyaartooygii kale kubaddii bay isku baaseen way ka soo dhaliyeen buuq iyo muran baa ka yimid ciyaartina waa lagu kala dareeray wasaaraddu waxaan u arkay amba sidii dhibcaha markii aan arkayey ay u taagnaayeen in labadii kooxood dhibciyo dhibcay kala siisay ciyaartiina la kansalay walow kooxdii qaladka laga sameeyey goosha laga diiday ay qalad ahayd laakiin haddana iyadoo qaladkaa laga galay kooxdu garoonka haddii ay ka baxday tira ma ciyaarayno miyaanay ahaateen kooxda qaladkana in si gaara looga wada hadlo kooxdaana dhibcii laga qaaday because kooxda kale ma ahayn koox ka baxday garoonka refrigaana qaladka sameeyo ka diiday goosha marka miidaan u arkin kooxda laftigeega amba fikradiinu siday tahay wasaaradda ciyaaraha laftigeegu ma diyaarsanaa qaabka ay u maamulayso ciyaaraha ayaale kolley su-aasha aad weydiisay ciidarusow ee ah in allahuma salli calaa maxamed wasaaradda ciyaaraha maamul ahaan garoonka dhexdiisa inay diyaarsantahay inaanay diyaarsanayn kolley midun baan kusoo koobayaa wasaaraddu horta qaybo kala duwan ayay leedahay lafteedu wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu waxyaalaha qaarna waxay ku leedahay khalad waxyaalaha qaarna khalad kuma laha runtii ma wada dhalinayno laakiin si fiican bay imka u shaqaynaysaa shaqo fiican bay wadaa marka la eega ganaaxyadu say u dhacayaan iyo guddida anshaxsay u wadaan laakiin eventiska taagan mar kasta maaha inaad meesha dhexdeedii go-aan ku gaadho ee waxa ay la tahay inay marka hore wax kasoo diyaarsato oo ay tidhaahdo muxuu ahaa maxaa kaaga meel yaalla waxaa iyo qodobka haddii maanta gobolkaasi saa sameeyo maxaa kaaga meel yaalla ee aanay noqon un qaar markaasu kula kaca actionkii
decisionkiina gaadha muxuu ahaa go-aankii aniga saasay la tahay badanaa dhaliishu markasta wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha ayay dul saaranta inta badan marka waxyaalo badan oo kulley khaldana way jiraan wasaaradda gudaheeda lakin waxaan rajeynaya insha allahu inay saxaan ma wada dhalinayno mana wada khaldana wixii khaldanna inay saxaan baan rajeynaya insha allah Salebaan waxaan ku weydiinaya noo si gaara adiga su-aashan ku weydiinaya maanta ciyaartii dhacday ee dhex martay Daadmareed iyo gobolka Hawd ciyaartu si fiican bay u dhamaatay labada kooxood way soo waayeen rigoorayaal baa la isla gaaray rigoorayaashii muran baa ka yimid goolkii ugu dambeeyey oo ahaa gool hayuu ka seefgareeyey ciyaartooygii laagaya qucle murankaa ka yimidna waa lagu kala dareeray meeshii marka laba su-aalood labadaba waan ku weydiinaya aragti ahaan markii aad eegtay walow dee vardayn haysanaane inta caalamka oo kalood xagga dambe iyo xagga horeba ka eegi karin aragtidaadu goolkaas sidee ahayd mana ku saxsanaayeen gobolka Hawd inay ciyaartii rifriga ay kula dhex dagaalamaan ay garoonkiina ka dareeraan iyaga oo dee ciyaartii aanaynaya in laga hiiliyey iyo dhinaca kale rifrigu ka raacay ayuu horta waad mahadsan tahay ciyaarta horta run ahaantii anigu dee goobjoog maan ahayn oo maan daawanaynin sida warkuu igu soo gaadhay ama waxaan ku arkay waa wax social media lasoo dhigay ama dee clip yaroo qof meel soo dhigay haddii aan isku dayo inaan cabirkayga ka dhiibto say waxu dhaceen dabcan inuu goolkiibarkaasu soo baxay iyo in kale iyo penaltiga qaabkii loo diiday qaabka looga dabcan anuma garan karo sababtoo ah meesha maan joogin dee faartiina qof arkay oo maanta dee ku qanci kara sida wax u dhaceen ma yihi laakiin waxa keliya te anu aan meesha ku arki kara waxa weeyaan tababar amin sidwalihii ama garsoorihii oo dee gacan loo qaaday ciyaaraha marka la eego de mar walba waxaa muhiim ah in nabadgelyada lagu dadaalo in uu speciallyna ninka garsooraha ama rifriga ah ama sidwalaha ah ee ciyaarta maamulaya in go-aankiisa lagu qanco haddii xitaa aad diidantahay dee inaan meesha gacan loo qaadin taasu waa mid muhiim ah oo mar qof walba dee maaragtay aan ku bogaadinayo in nabadgelyo la siiyo hase ahaatee goolkii laysku diiday inuu gool ahaa inuusan ahayn dee Caydiruus anigu run ahaantii marka la eego nin meesha joogo si fiican u arkay qaabka ay wax u dhaceen ma yihi marka arrinta iyadana lafteeda iyadana saasaan kaga baxaya aad baad mahadsantahay mustafa su-aasheeda adiga kuu taalaan jeclaya inaan ku weydiiya waxa weeyaan ciyaartooyga gobolada laga soo xulay maadaamood booramana soo joogtay aad in badanna ka war haysa ciyaaraha wax boonasaanba ciyaartooyga la idhaa hebelow gobolkaad matalaysa kaalay deetana wax boonasa ciyaartooygaasi ogyihiin oo loo ballan qaaday laleeyahay koobka haddaad soo ciyaartaan ciyaartooygii boorama matalaya baatiin haddaad gruupka kasoo baxdaan waxaasaa laydin siinayaa haddaad quarter final gaadhaan waxaasaa laydin siinaya haddaad semifinal ilaa finalkanba koobka qaadaan may jirtaa mise wax ganacsatada amba dadka magaalada jooga waxay ciyaartooyga usoo ururiyaan unbaa loo qaybiyaayo ciyaartooygii halkaasay wax ka helaan qaabkay u shaqaysaan qaabkaas bismillah horta ciyaartooyada marka lasoo xulayo kulley qaabo kala duwan baa lasoo xulaa base markaan ka hadlo gobolkayga awdal marka lasoo xulayo ciyaartooyada horta cidda wax bixisa ee maalgelisa ciyaartooyada waxa weeye waa dadyooga ganacsatada ee ku dhaqan magaalada runtii dowladdu iyadu jas keliya waxay maareysaa un maamulka wixii ka dhexdhacaya garoonka intaas unbay maamulkeeda leedahay laakiin cidda dhaqaalaha ku bixisa ee maaragtay waqtigooda horta waxa weye waa ganacsatada way jiraan marka ciyaartooyada lasoo xulo marar badan oo loo ballan qaado in la siinayo kharashaad ama waxyaalo badan loo ballan qaado boqolkiiba 40 ayaa maaragtay ka soo tooba oo ay ka helaan ballanqaadkii inta kalena waxay noqdaan wax bacad la bulisay marka waxaan odhan karaa inta badan ganacsatada ayaa jeebkooda uga hura kharashaadka dowladduse laakiin maaraynta unbay leedahay shaqadaasna waxaa iska lahayd runtii wasaaradda sports in iyagu ay maalgeliyaan oo ay wax badan u qabtaan base nasiib darro waxaad moodaa in wixii adigu la kala macaashayo oo
ay wasaaraddaasi adigu hawshaas ay ku dhaliilan tahay